halkan dadaal fiican bay ka qabteen shaqaalaha wasaaradda ee heer gobol iyo deegaankuba waa deegaan runtii aad iyo aad ugu dhagan nugul. agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Axmed Ibrahim Warsame oo weheliyo isuduwaha wasaaraddaasi ee gobolka Awdal ayaa soo kormeeray sayr kaymeedka buurta libaaxley ee degmada Boona. wasaaradda deegaanku ay ka hirgelisay barnaamijyo isugu jira ilaalinta deegaanka, xidhxidhka ama moosas loogu talagalay in lagu kabo dhulka jeexjeexmay ama nabaad guuray si dib loogu soo celiyo, iyo goob lagu kobciyo dhirta kasii dabargo'aysa sayrahaasi. kormeerkan oo salka ku hayay dabagalka qiimeynta iyo indhaynta barnaamijyada laga wada sayr kaymeedka buurta libaaxley ayaa farxad gelisay madaxda booqday, waxaana ay u muuqatay mashruuc lagu guuleystay oo u fulay habkii ugu wanaagsanayd ee wasaaraddu qorshaysay. qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyo howlwadeennada wasaaradda ee dadaalka ku bixiyay seerahani oo hadalka qaatay ayaa sharaxay isbeddelka horumarineed ee ku yimid seerahaasi muddada kooban ee uu xidhnaa. markii hore siduu ahaan jiray wax weyn baa iska bedelay. waxaa iska bedelay nabaad guurkii, carra dhaqaaqii, daaq la'aantii, dhir la'aantii. waxaa iska bedelay maanta nimcada iyo buluuga iyo dhirta iyo tigaada iyo carrada fadhiisatay maanta maxaan ku dhahdaa aadka loo kabay. saa darteed waxaa kusii batay oo maxaan ku dhahdaa waxyaabaha dabiiciga, harimacadkii, maxaan ku dhahdaa shabeelkii, waraabe dhammaan, adeeryadii, garanuugtii, gebi oo maxaan ku dhahdaa aad ugu farabatay oo ku dhaqmay. marka dhirtii la goyn jirayna waa la joojay. maxaan ku dhahdaa dhulkii ciidii xidhmeysay, dhaqaaqaysay, dhaadhacaysayna waa la xidhay, waa la kabay. sidaa darteed waxay u noqotay faa'iido fiican. dhirtiina way baxday. wixii aan nabaad guure ee geedii buurta ka dhintayna waxaan ku sameynay in neersariga aan ku kicinno. intaa kadib isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal injineer Cabdiwahaab Xuseen Muumin oo madashaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay horumarkani madaxda sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland. ilaahay baa mahad leh inoo suuro geliyay maanta inaanu kormeerkii kwartarkii afraad ee sanadka bishan December waxay aniga farxad weyn ii tahay ka isku duwa Awdal ahaan isbeddelka ku yimiday insha Allah ilaahay hadafkiin doonayna noo suuro galay seeraha libaaxley kaasoo maanta indhuhu markay arkaan runtii farxad weyn aad la dareemayo, sababtoo ah hadafyadii aan ka lahayn iyaan aad runtii aan gaadhnay oo ahaa in aan ka la yareeyo nabaad guurka iyo siidhirka kala duwan ee daaqyada kala duwan ee ku yaala iyo dhirta kala duwan ee ku taala, hadday sigibti tahay, hadday dayabki tahay, waabad ayu geed. marka waxaan rajaynaynaa maanta quruxdiisa iyo siidhka ku yaala iyo daaqa ku yaala quruxdiisa waad arkaysaan. waxaan ugu horeyn quruxda runtii dadaal weyn ku lahaa agaasimaha dhinacayga taagan ee waaxda dhirta iyo daaqa amaba wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada heer qaran, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwo Shukur Xaaji Ismaaciil, agaasimaha guud, dhammaan mas'uuliyiinta oo si khaas ah iskaga xil saaray xidhxidhka iyo neersariga aynu ka dhex samaynay seeraha ee dhirta sii dabargo'aysa ee xarow dhaladka si loogu kor tayadeeda loogu qaadana runtii soo bixiyay oo ka soo bixiyay isla maxay ahayd kabka wasaaradda. runtii mas'uuliyiintaas oo dadaal badan la siiyay oo in la'aantood ayna hirgeli lahayn ama quruxda una seeruhu lahaan lahayn. waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro, waajibaadkiinana waad gudateen. waa seere aad iyo aad dadka muhiim ugu ah. duurjoogtii baa joogta noocyadeedii kala duwanaa, waxa ku dhaqan dhir iyo cawsba wax noocyadii kala duwanaa, wuxuu ka hoos u dhigayaa isbeddelka cimilada. runtiina waxaan arkaynaa dadaaladii iyo isbeddelka yimiday ee wasaaraddu ku tallaabsatay ka wasaarad ahaan noo hirgalay. waxa weeyaan mid togan oo aad iyo aad u muhiima, waxayna la'aanteed inay hirgasheen dadka deegaanka oday dhaqameedka ugu horeeyaan odayaasha deegaanka iyo shaqaalaha iyaga oo runtii muujiyay habeen iyo maalin u soo jeeda. Axmed Ibrahim Warsame agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland oo hadalka qaatay ayaa ilaalinta deegaanka uga mahadnaqay howlwadeennada kala duwan ee ka howlgala buurta libaaxley iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal. xarunta wasaaradda oo aan ka socdo anigu
waxaa halkan aan u nimid runtii inaanu kormeer ku samayno kormeer joogta mar walba waanu ku nimaadnaa inaanu ku samayno xaaladda ay ku sugan yihiin seeruhu sida looga shaqeeyo shaqada laga qabtay siday shaqaaluhu u shaqaynayaan intubana si runtii aad iyo aad u fiican bay uga howlgalaan shaqadii looga baahnaana way qabteen seera kaymeedka buurta libaaxley waxaa la xidhay sanadka kan wuxuu u xidhan yahay si aad u qiimo badan waxaa laga qabtay shaqooyin aad u fara badan shaqooyinka faraha badan ee laga qabtay runtii waxaa lagu maalgeliyey mashruuc laga bixiyey cashuurta dowladda dadweynuhu ay bixiyaan ee qasnada dowladda waa iska kaashadeen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda deegaanka waxaana ku haysa gacanta oo implementationkiisa ama fulintiisa samaysay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa laga qabtay shaqo fara badan runtii marka hore seeraha kan waxaa ilaalintiisa ka howlgala 12 shaqaalaha oo ah seera ilaaliyayaal ama dhir ilaaliyayaal waxaa kale oo iyaguna ka shaqeeya moosaska lagu celiyo carrada iyo biyaha 15 shaqaalaha oo iyaguna si joogta ah uga howlgalay iminka intaa uu xidhnaa seeruhu waxaa laga qabtay shaqo fara badan oo ay ka mid tahay in seerihii la ilaaliyey in xoolihii laga ilaaliyey in dadweynihii laga saaray in moosaskii laga sameeyey carrada iyo biyaha lagu ilaalinayo dhulka nabaad guuray ama jeexjeexmay dib loogu kabayey in la sameeyey neersarigii lagu biqlinayo ama lagu tarminayay dhirta ka dabar go'day seeraha runtii aad iyo aad baa halkan dadaal fiican bay ka qabteen shaqaalaha wasaaradda ee heer gobol iyo deegaankuba waa deegaan runtii aad iyo aad ugu dhagan nugul xidhitaankii seeraha iyo la shaqayntii wasaaraddaba waxaa halkan ka muuqata runtii inuu seerihii bilicdiisii iyo muuqaalkiisiiba ay dib u soo